xasilooni darre siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka Gedo waxaan madaxda dawladda federaalka ah ugu baaqaynaa in ay ku kicin ficil la mid ah midkii ay iyaga laftooda dhibanaha u ahaayeen ee diyaaradii ay la socdeen hawada laga celiyay loo diiday inay gudaha dalka ku safraan ficiladii ay madaxda federaalku ay haray madaxdii ka horeysay ugu cambaarayn jireen ee xayiraada duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ah ugu kala goosho gudaha dalka waa nasiib darro in maanta dawladda federaalka ku caburinayso dadka gobolka Gedo wixii ay horay u diideen iyagoo iska indhatiraya baahida loo qabo Jubbaland in loo sameeyo Jubbaland loo sameeyo dib u heshiisiin dhameystiran waxaan ku baaqaynaa in dib u heshiisiin ballaaran lagu dhameeyo xiisadda gobolka Gedo ee aanan xabad iyo caburun iyo diyaaradaha la joojiyo aan loo adeegsan waxaan sidoo kale walaac ka muujinaynaa isku dhacyada ciidamada militariga Soomaaliya kuwa maamulka koonfur galbeed ku dhexmaray Baraawe iyo Ceelbardi waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo dhacdooyinkaas oo loo jeediyo awoodda ciidamadeena la dagaalanka argagixisada iyo xadgudubka dawladnimada dadka wada